5 qodob oo kuu horseedi kara guul iyo hadaf horumar leh. Ugu horreyn, ma jiraan adduunkan wax sugan ee isbeddel joogto ah ayaynu ku jirnaa. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbeddeladaas, uuna qofku si joogto ah isu horumarin lahaa si uusan uga harin tareenka nolosha. Waxaa kaloo jirta baahi joogto ah oo ah dhinaca xirfadda iyo macluumaadka intaba. Culeysyada nolosha soo wajaha way badan yihiin. Sidaa daraaddeed, waxaad u baahan tahay inaad mar kasta baratid tabaha iyo sidii aad ula dhaqmi lahayd ama uga gudbi lahayd culeysyadaas. Tiirarka ay ku taagan tahay is-horumarinta wax kasta sal iyo aasaas ayay leeyihiin. Haddaba, halkan waxaan si kooban ugu sharxi doonaa 5 tiir ee is-horumarintu ku taagan tahay. Waxayna kala yihiin: 1. Waa inaad istaqaano. Qofku waa inuu isweydiiyaa kumaa tahay, maxayse tahay awooddaada iyo xirfadda aad leedahay. Haddii uusan qofku su'aalahaas jawaab rasmi ah u helin, waxaa ku adkaan doonta inuu is-horumariyo. 2. Waa inay ku caddahay waxaad ka damacsan tahay noloshaada. Waxaa loola jeedaa qofku waa inuu leeyahay qoraal cad oo caddaynaya hadafka uu leeyahay, kuwo dhow short term goals iyo kuwo fogba long term goals. Hadafyada fogi waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo ka badan sanad, sida inuu qaato degree jaamacadeed iyo wixii la mid ah. Hadafyada dhowi waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo sanad ama ka yar ah, waxayna u adeegaan sidii lagu gaari lahaa hadafyada fog, sida barasho luqadeed iyo wixii la mid ah. Taasi macnaheedu waa in qofku leeyahay meel uu ka duulayo, og yahayna meesha uu u socdo. Laakiin haddii uusan ogeyn meesha uu u socdo iyo meesha uu hadda joogo, waxaa cad inuu ku fashilmayo is-horumarintiisa. 3. Waa inaad taqaanid sida aad ula dhaqmi lahayd naftaada iyo dadka kale intaba. Waa inaad taqaanid waxaad ka rabtid ama ka damacsan tahay nafsadaada iyo tan dadka kaleba. Aadna ka dhaadhicin kartid waxaad damacsan tahay, weydiin kartidna waxa aadan fahmin, adigoo adeegsanaya qaabka iyo sida ugu wacan ee lagula xiriiro dadka kale. Haddaba, waa lama huraan inaad horumarisid xirfadaha kaa kaalmeynaya xiriirka iyo bulshanimada, isla markaana aad ogaatid inay lama huraan tahay inaad xiriir fiican la yeelatid dadka kale. Ogowna, waxaa kula saxani qofka kale waa ay la qaldanaan karaan. 4. Waa inaad leedahay xirfad aad kaga faa'iidaysan kartid hantidaada. Waxaa loola jeedaa inaad leedahay hanti aad uga maarmi kartid inaad dadka kale wax weydiisatid. Soomaalida ayaa tiraahda bugto badan iyo baryo badan waa la isku nacaa. Taasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad abuuratid ilo dhaqaaleed. Maxaa yeelay, haddii aadan haysan lacag aad isku horumarisid ama aad isku maalgelisid, is-horumarintu way adag tahay inay sidii la rabay noqoto. 5. Waa inaad leedahay xirfado aad wax isku bari kartid. Tani waxay tilmaamaysaa awoodda aad u leedahay inaad si fudud ama dhaqso ah ku heli kartid, kuna kobcin kartid macluumaadka iyo cilmigaagaba, adigoo adeegsanaya marba xirfadda aad u baahan tahay ee kaa kaalmeynaysa waxaad u baahan tahay. Tusaale ahaan, maanta waa caalamkii u noqday tuulo oo kale, global village, oo macluumaad kasta aad ku heli kartid muddo kooban. Bal ka waran haddii aadan aqoonin sida loo adeegsado internetka. Sidaa daraaddeed, waa inaad abuurtaa amaba kordhisaa xirfadaha kugu saacidaya kororsiga cilmiga. 5 tiir ee soo sheegnay ayaa u ah jiridka ay ku taagan tahay is-horumarinta, la'aantoodna ay adag tahay inuu qofku is-horumariyo. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay, please subscribe noo saar.